Assalaamu calaykum. Muuqaaladan iyo kuwa la mid ah oo dhammaantood cadeymahooda wata caawa haddii aan kula wadaago waxaad ogaan doontaa cidda rasmiga ah ee gacanteeda ku baxday ee Bah u Raxmade sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax oo la waayay 26 bishii 6 ee June 2021. dhammaan muuqaaladan waxay cadeymo u yihiin ama hordhac u yihiin baarisyo aan wadnay 9kii cisho ugu dambeeyay oo aan channelkan ku baahinaynay ila daawo madaxdan hadal jeedintayda waxaan ku soo gunaanadaya arrinka Ikraan Tahliil Faarax ee taagan maanta qoyska Ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta mudana madaxweyne cadaaladda garab istaag waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli waa waajib diini ah mid dastuuri ah mid damiir ah intaba damiirku ha ku danqado mudane madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad indhaha fura maxkamadaas la dardar-geliyo gabadheydii arinteedii waxa layga qabto shalay waxa uu ololeynaysan waxay ahayd inay Ikraan cadaalad hesho oo qof kasta Soomaaliyeed oo cadaalad darro haysan cadaalad uu helo maanta aniga cadaaladii meeshan ka filay inay fadhigayga iigu imaatoon aamusnay wax ii soo socdo waa la ahay shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markas u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheennii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horan waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan haddaba ilgaara caawa waxaan diiradda ku saaraynaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Xasan Sheekh Maxamuud iyo raggii kale ee sida weyn ugu soo ololeeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax hooyo qaalina wali banaanka ay joogtaa oo waxay raadinaysaa cadaaladda gabadheeda haddii macluumaadyadan rasmiga ah ee caawa aan hayno aan kula wadaago waxaad ogaan doontaa cidda ay gacanteeda ku baxday Ikraan Tahliil Faarax 5 sano kadib wararkeena kale waxa ku jira dhulboobkii ugu badnaa ayaa ka socda Muqdisho si gaar ah xaafado ka tirsan magaalada oo ay dawladdu dadkii shacabka ah ka barakicinaysaa warar iyo macluumaad ayaan eegaynaa waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like saarto channelkana subscribe soo tiraahdo Bah u Raxmade Ikraan Tahliil Faarax ayaa nolol iyo geeri lagu waayay taariikhdu markay ahayd 22kii bishii ama 26kii bishii June sanadii 2021 iyadoo oo hooygeeda ka baxday oo na qaaday gaari nooca ay xabadu karina sida la sheegay gaarigaasi waxa ku qaaday darwal xilligaasi uu lahaa xildhibaan hadda ka tirsan baarlamaanka oo Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari lagu magacaabo waxaana ay ka ballansanayd xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay shaqo u doonatay sida wararku ay sheegayaan hay'adda NISA oo xilligaasi madax uu ka ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu eedeeyay dilka gabadhan laakiin dhowr maalin kadib warqad ay hay'addu soo saartay waxay ku sheegtay in gabadhaasi ay dishay kooxda argagixisada ah baarisyo iyo sidoo kale xogo madax bannaan oo muddo la naawilayay ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan laakiin caqliga saliimka iyo maskaxda fayu markii laga shaqaysiiyo waxaa dareemaysaa Ikraan halka ay ku maqan tahay cidda dishay iyo sidoo kale xogaha labada dhinac ay bixiyaan kiiska Ikraan looma dhaafo 7 qof oo isku eedaysay 7daasi muuqaaladan kuwii ka horeeyay ayaan magacyadooda kugula wadaagay caawase waxaan jeclahay inaan kula wadaago 2021 ra'iisul wasaare Rooble 2025 sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud 2020 shalay maxay ogaayeen maanta se maxay u ogolaan leeyihiin cadaaladda waxaan eegaynaa qodobadaas waraysiyadan iyo muuqaaladan oo faahfaahsan ayaan kula wadaagayaa ha degdegin si nuxur leh oo dhuux muuqaaladu ay badan yihiin dabcan saraakiil baarisyo sameeyay ayaa ku jira ra'iisul wasaaraha ayaa kamid ah madaxweynaha ayaa ku jira gabadha hooyada dhashay gabadha geeriyootay ee Ikraan oo lagu magacaabo Qaali Guhad ayaa kamid ah macluumaad aan soo ururinay oo ay dad badan oo Soomaaliyeed xog ogaalnimadooda ku cadeynayaan ayaa ku jira muuqaalkan ha degdegin si degan u daawo dhuux waraysiga kadib wixii kaaga soo baxo aragtidaada qaybta faalada noogu reeb haddii aad subscribe saarto channelka waa mahadsantahay like-tan waxay qayb ka qaadanaysaa in ay sahasho xog kale oo badan dad badan muuqaalkan u gaaro marka hore muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh ila daawo warbixinadan iyo macluumaadkan dhameystiran
taada ay khatar gashay dad badan waxay dareemeen in culays badani ku haysto qaaraa ka walwalay qaaraa su-aal iska weydiinaya maxay ahaayeen culeysyada amniga ee aada dareentay walaalay dalkan saa u jeedid amniga dad gaar ayuu gacanta u galay ka soo qaad imagine in falastiinay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqeynayo aysan sidaa rabta kula shaqeyneyn oy dhibka qayb ka yihiin imagine waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhi ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay derbigii dadka ka dambeeyey waa u dhawaaday inaan soo taabto dadka ka dambeeyey way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo imagine gabadhii u ololeynaysa oo beledweyne lagu dilay xildhibaanad aamina wax yar haddaan kuu sheego aamina dadka dilay waxaa la dhahaa gobollo kalea laga keenay beledweynea la keenay beledweyne meelaha intii la keenaa qayb ka mid ah ayaa laga soo qaaday ninkaas aamina dilaya habeenkaas saacadda cishaha camal aheedan qiyaasayaa ma rumaysanaysaa 3 xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo aamina ka dambiye badan marka dhinaca shabaabka loo fiiriyo ya oo ay ka mid yihiin gabdho ay ka mid yihiin rag wasiire ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah ninkii waxaa la ii sheegay markasta inuu soo istaagayay qofka soo maray aamina miyaa inuu dhahayay marka imagine aamino intaan taariikhdeeda ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yidhaha argagixisada ama al-shabaab ay wax ka sheegtay meel lagu mahayo waa yaa waa cid marka taarget garaysanaysa adii aan ku weydiiya dadkii oo shabaabka ama argagixisada baabi'inayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waayo oo xildhibaannimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray umuu istaagin ninkii taarget umuusan ahayn lakiin gabadhan taarget ay u ahayd marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay u soo taagneed kollaytaba waxaa aaminsan tahay inaanay shabaab dilin oo dad kale ka dambeeyay gabadhan kuwii ikraan dilaa ka dambeeya maalinna ilaahay wuu ka soo saaraya subxana watacaala haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba maalin way ka soo baxaysaa waa kaas taasaan aaminsanahay doorashada waa ay dhacday dhibaato badan culays badan sida aad ka sheekayso oo aad soo martay habeenka howlkaan wada joognay maxaad dareemaysa runtii soomaali ajaanib muslin iyo gaal kulli waxaa la wada sugayay doorashadaas inay dhacdo waxay ahayd oo din igu taagan sababtoo shaqada keliya oo aniga ii taagnayd oo aan wadankan lai idmaday inaan fuliyo doorashada ahayd adigana waad ogtahay meel kasto marka assalaamu calaykum la yiraahdo wacalaykum assalaam waxaa ku xigtay doorashadii waxa aad ku socota anigoo ahaa marka saa darteed waxay ahayd taargetka igu weyn oo habeenkaas oo muhiimka ii ahayd oo aan 20 bilood ama 20 bilood ama sanad 8 bilood aan usoo halgamay ayay ahayd culays runtii oo Soomaali dhan haystay oo ahaa sababtoo Soomaaliya mugdiga gashay siyaasiyan mugdiga gashay dhaqaale mugdiga galay bulshada mugdiga gashay siyaasiyan mugdiga gasho musharaxiin fara badan magaaladan joogo iyo rag kursiga markaas madaxweyne farmaajo oo haystay oo kursiga waqtigiisa dahay sanad iyo wuxuu dib u dhacay Febraayo iyo sanad iyo wuxuu dib u dhacay 4 bilood ayuu dib u dhacay dhaqaale magaaladan wixii dhana istaagay dhaqaalihii waa istaagay wixii la keenay waa istaageen dhulalkii la kala gadanay waa istaageen haddii alla ku roon yahay guryihii la dhisanay way istaageen wax kasta istaagay marka dhaqdhaqaaqii oo dhaqaalaha oo magaalada wareejinay way istaageen banuugta lacagta sida loo rabay way waayeen maxaa la dhahaa dhaqaalihii waa taas waxaa ku soo hartay arrimaha bulshada security cabsiya soo gashay magaalada waa la socon waayey saas ay tahay magaalada baabuurta qarxiisa waa yaraatay laakiin dad suuman wata ku soo batay dad dilaya ku soo batay qofkii waa xiliyada looga faa'iideysto siyaasadda in qofkii uu isleeyahay kursiga kugu haysta ama caqabada kugu yahay uu dili karay ku soo aaday marka amniin iyo shacbiyin meesha hooseysa la gaarisa aniga aaminsana muddana Soomaaliya hadda waxaan ka shaqeynayaa oo aan ka soo noqday Yurub 22 sano aan jooga hadda aan ka shaqeynayaa si toos ah oo aan u deganahay marka heerkii ugu xumaa ayay gaartay of course dadku waxay isweydiinayaan waraadaba kamid ah dawladda maxaad u sheegaysaa runtii qofka hadduu runta sheego xalka waa imaanaya waxaana teeda kale shacabka waxaan u sheegayaa waxaan ani malihi idinka iskale aniga qaaduma aan u ahay shacabka haddaan runta u sheegina waxa waaye gudan ka tuuraya marka waa inaan u sheega xaaladda markaas sidee u aragtaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay inuu mar laba dalka hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku yimid doorasho xalaal oo habeenkaas dhacday oo doorasho tii ugu fiicneed oo ku yimid
waxaa taas u labayso madaxweyne xasan sheikh soomaaliya oo dhanna isku raacday inuu oday yahay oo isku hayn kara soomaali adduunkana ku hayn kara caalamkana ku hayn kara marka waa run madaxweyne xasan sheikh horuu madaxweyne usoo noqday eedo badan qofka malaa'ig ma ahan wax waa lagu tuhmayaa wax waa iska dacayad waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu oday soomaaliyeed yahay oo xaaladan dalka hadda loo doorto uu yahay qofka ugu munaasibsanaa sababtaan u leeyahay taasna waxaa waaye isagoo ah nin waaye arag ah ka soo shaqeeyey bulshada. maxaa talo ku siin lahayd maadaama adiga hadda hawsha intaas aad soo waday aad joogtay aragtay caqabadaha taagan talada ugu aad is leedahay waa ugu fiicanta inuu madaxweynuhu qaato cusub maxay wallaahi horta madaxweyne xasan sheikh waa saaxiibkay laakiin labadeennaba waxa isku hayahay waa dalka naga weyn ya dalka naga weyn anigii madaxweyne xasan sheikh hambalyaan leeyahay marka hore marka labaad waxaan leeyahay dalka amnigiisa meesha ugu xumeeduu joogaa degdeg inuu wax uga qabto ilaahay inuu tusaan rajeynayaa haddana waa weli waa shaqaynaa wada shaqaynaa anaa weli ra-iisul wasaare ku-simahi ah intuu ra-iisul wasaare kasoo magacaabayo laga dhaarinayo amniga waa muhiim waa kula talinaya waxaan kula talinayaayoo kale in dhaqaalaha uu kor u qaado arrimaha dadkii waxaa jirto shaqo la-aan baahsan ayaa jirto in dhaqaalihii kor loo qaado uu ka shaqeeyo sida wadankan investment loo gashan lahaa haddii aan lahayd batrool haddii aan lahayd shirkado caalami ah dhul weyn oo beereedaan leenahay labada webi ah taqaanid in xitaa ciddi la keeni karo oo shaqo looga helayo la keeno waa kula talinayaa waxaan kula talinayaa oo shacabka hadda ay jecelyihin inaan madaxweyne xasan sheikh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan adaa ka mas-uul ah waa kuu sheegaya mar koowaad mar labaad mar saddexaad milkiile dalkan iska lahan ninku keensada ma jiro soomaali aday ku dooratay dadkii soomaali ay soo dooratay xildhibaanadaas xildhibaankiina ugu yaraan 60-70 soo dooratay ayuu matalaa oo kun oo soomaali oo xildhibaankiiba matalaa soomaali raggii matalay oo xildhibaanaas ay kusoo doorteen walaalow xasanow wadooyinkii soomaaliya ee ku duntay waxaa ka mid ah milkiile go-aanka adiga qaado iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas kula hayso cid kale ha ku aaminin tariinka aad sheegtayna waa muhiim waa tariinka aad sheegtay dadka waxay dhahaan halheys hadda soo baxay oo ah rooble markabkii badda dagaay wuu ka soo saaray dekadii oo keenay dekada tariinkii uu ku xiray xasan madaxweyne xasan sheekh waxaa leeyahay tariinkii dekadii dadkii oo markabka saarnaa tariinkan ku wareejiyey waxaan kaa rabaa meel fiican inaad geysid oo dad badan waxay isweydiinayaan maadaama aad dad badani ay siyaasadaada soo dhaweeyeen dad badanoo dabcan ma soo dhaweyn laakiin aad magac ku heshay ixtiraam ku heshay hanaankii doorashada soomaaliya oo aad soo gabagabaysay maxaa isku soo sharaxi weysa oo fursadaas uga faa'iideysan weyn horta waa mahadsantaha walaashay waa sax hami waa leeyahay ambish waa leeyahay oo mustaqbalkayga in maxaa la yidhaahdaa aan siyaasadda ku jiro waa ku qasbanahay waana ku jirayaa mana ka baxaye laakiin caqliga waa inuu shaqeeyaa 60 ilaa hadda lama hayo sida statiska la ii sheegay ra-iisul wasaare markaas xilliga hayay oo tanaasulay lama hayo oo madaxweyne ka tanaasulay inuu isku soo sharax weli lama hayo 60 ilaa hadda walaalay markaan fikiray xaaladda dalka ku jirta aan arkay waxaa ii soo baxday oo inay macquul ahayn inaan danteyda ka hormariyo danta guud sababtoo ah conflict of interest ayay noqonaysaa inaan aniga dhaho madaxweyne raadi wixiias ka hor imaanaya sababtoo ah dad aanan munaasab ahayn markaas inaan la heshiiyo ama aan la shaqeeyo ayaa dantii ugu qasbaysa haddaan kursi damco inaan dadkaas dana ka dhex raadiyo danihii marka meelaan dhigay aniga u danaynaya danta shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee mugdiga ku jirto saas darteeda intaan meel isaga dhigay ayaa go-aansaday inaan hawshan dhammeeyo markabka kusoo xiro dekeda si nadiif ah aan shacabka soomaaliyeed dhaho waa kaas ilaahay garabkiina hagalo madaxweyne sooma dooran ahaa aniga musharax ma ihi laakiin kii ilaahay idin siiyey waa kana nac salaamo waa mahadsantihiin maxaa xiga marka halkaas waxaa xiga howlba hadda waxaa xigo waa karyeerahayga inaan soo dhiso xagga siyaasadda oo waxaan rajeynayaa sidaan kula dardaarmay madaxweyne xasan sheikh waxa oo u yaallo in doorashada soo socota laga dhigo qof iyo cod dastuurka la dhammaystiro waxaan rabnaa in aan xisbiyo isku diyaarino oo si xalaal aan uga qayb galno haddii mustaqbalka la helo alxamdulilah haddii la waayan rabbilcaalamiin teeda kalena hal qaacidaan kuu sheegayaa ma guuleysto qofka markuu xukunka raadiyo horta xog ku raadiyo ama uu aad u raadiyo ma guuleysto sababtoo ah waxaa waaye sunnada ilaahay ah in qofkan la dhaho na maamula ku wanaagsan laakiin inuu dhaho anay ugu fiican tahay
ereygaasna ma jecli inaan dhaho anay ugu fiican tahay marka saa darteed waxaan rajeynayaa insha allah hadday shacabka gartaan oo qof iyo codkaas ah alxamdulilah haddii la waayana ummaddeedaan ka tirsanahay abaalka iyo shaqada ummaddeedaan u haya madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad indhaha fura maxkamadaas hala dardargeliyo gabadhaydii arinteedii waxa layga qabto shalay waxa uu ololeynayseen waxay ahayd inay ikraan cadaalad hesho oo qof kasta Soomaaliyeed oo cadaalad darro haysan cadaalad uu helo maanta aniga cadaaladii meeshan ka filay inay fadhigayga iigu imaatoon aamusnay wax ii soo socdo waa la ahay waan aamusay baryahan waxaan la aamusana waxay tahay dawladda cusub waa timiday oo og oo ka qarsadeen hawshan yaa wax ka qaban doonto oo ballan qaadeen oo soo istaageen oo arintii ikraan ballan waa inaan wax ka qabanay yiraahdeen maxaan ku dhahayay yaan la aamusnay intaas dawladii tii horena waa baxday tii dambana way timiday maxaan ku dhahayay si oo bal sug yaan ku suganay oo ku aamusnay maahana aniga kuma aamusni in macnaha laaleesh leysiyay ama si kale leeyla dhaqmay aniga cadaalad darro ay hayso waa dulmanaan ahay gabadhaydii raq iyo ruux ma haayo qofaaba inta dhinta laga sabraayo la duugtaa qofaaba waa xiran dacwadaas loo qabaa liira intiiba ma haysto gabadhaydii waa iga hor muuqataa waa xanuun iyo walbahaar iyo walwalan ku noolahay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka rabay inay cadaalad aan ka helo cadaalad ma haysto taliska nabad sugidda waa la joogaa taliyaa imaaday wasiir waa dhisan yahay waa ra'iisul wasaare wadanka wuu leeyahay ra'iisul wasaare xamse madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad indhaha fura maxkamadaas hala dardargeliyo gabadhaydii arinteedii waxa layga qabto shalay waxa uu ololeynayseen waxay ahayd inay ikraan cadaalad hesho oo qof kasta Soomaaliyeed oo cadaalad darro haysan cadaalad uu helo maanta aniga cadaaladii meeshan ka filay inay fadhigayga iigu imaatoon aamusnay wax ii soo socdo waa la ahay wax ii damqanayo uma jeedo waxaan codsanayaa in wax laga qabto arintii gabadhaas kiiskaas waa kiis weyn waa kiis dhibaato weyn xambaarsan waxaan rabaa maxkamadda inaad dardargelisiin wax iiga qabatiin meeshan filay inaad laga hadlo wax hadlaayo male aniga marka inaa hadlo waa ku qasba arrinka ikraan tahliil faarax ee taagan maanta qoyska ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta mudana madaxweyne cadaaladda garab istaag waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli waa waajib diini ah mid dastuuri ah mid damiiri ah intaba damiirku ha ku danqado mudane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay'adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida ikraan tahliil faarax tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda nisa in ay keenaan xog dhammaystiran siyayna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddaymo ku filan ama ka jawaabaysa su-aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska ikraan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyey kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 10aad 15aad 33aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa waxaan u cadeynayaa qoyska ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in ikraan iyo qoyskeeda ay helaan
cadaalad. sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax. waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay ii soo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go-aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka soomaaliyeed hadduu ilaahay subxaana watacaala raalli ka noqdo. waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas-uuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. arrinka ikraan tahliil faarax ee taagan maanta, qoyska ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta. mudane madaxweyne, cadaaladda garab istaag. waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli. waa waajib diini ah, mid dastuuri ah, mid damiiri ah intaba. damiirku ha ku danqado mudane. arrinka ikraan tahliil faarax ee taagan maanta, qoyska ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta. mudane madaxweyne, cadaaladda garab istaag. waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli. waa waajib diini ah, mid dastuuri ah, mid damiiri ah intaba. damiirku ha ku danqado mudane.